taliska ciidamada booliska Soomaaliland ayaa ka hadlay xadhiga xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga mucaaradka UCUD Maxamuud Cali Saleebaan Ramaax. Taliyaha ciidamada CID-da gaashaanle sare Faysal Xiis Cilmi ayaa ka hadlay sababta loo xiray xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga UCUD. markii xigtana waxaan galabta isugu nimid shirkii jiray inaan ka hadalno sifaha sharciga ee lagu xiray Maxamuud Cali Ramaax. Maxamuud Cali Ramaax ciidanka booliska ayaa galabta soo xiray. waxaa lagu eedeynayaa inuu aflagaado iyo ceebeyn u geystay gudoomiyaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland. aflagaadada iyo ceebeynta u geystay waxay ahayd isagu wuxuu yidhi gudoomiyaha baarlamaanku wuxuu xiriir la leeyahay dad cadow ku ah Soomaaliland eegata. taasina waa faldabeed taasoo ka soo dacwooday gudoomiyaha baarlamaanku isagoo shakhsi ah sidoo qabaartiga eedwan ayuu soo dacwooday sifii sharciga uu soo maray ciidanka booliska loo keenay kiiskii waa la baaray. markii kiiskii ku cadaaday waxa ciidanka boolisku dalbadeen in loo soo gooyo warqadda qabashada ama waxa loo yaqaan warrant of arrest. tiibaa loo soo jaray galabta la soo qabtay sidoo qabaartiga 29 markii aan soo qabanay aan xidhnay Maxamuud Cali Ramaax waan tusnay waan u sheegnay in wararka lagu soo xiray oo lagu eedeynayo article 268 iyo 385 waanu xiray yahay. waxaan la horgeyn doonaa maxkamadda iyo xiraaninta awoodda u leh qaadista kiiskaasi. waxyaabahan kale uu ka hadlayo Maxamuud Cali Ramaax culimada sharciyaqaanka waxay ku tilmaamaan waxaasoo kale waa nadan foyd anagu ma ogin waxa kale uu sheegay ma ogin. waxaanu haynaa oo keliya waa ceebeynta iyo aflagaadada uu u geystay gudoomiyaha baarlamaanka. taasaana wararka loogu soo jaray taasaana ku xiran yahay sifa sharciga ku xiran yahay. waxaana la horgeyn doonaa haddii ilaahay ka dhigo 48 saacadood gudahood maxkamadda. Xamse Dabaale, Telefishinka Star, Hargeysa.